Hi, asxaabtiisa qaaliga ah waa Ismaaciilis Program. Tiknoolajiyadda way sii horumaraysaa si ay u gaarto yoolka guud. Laakiin waxaa maanta tan diiradda saari doonaa ama fiidiyoon uga hadli doonaa kombiyuutarada, khaasatan laptop-yada. Haddaba, isbeddelka guud ee ku yimid sanadkan cusub ee 2020-ka laptop-yada muxuu yahay? Isbeddelo badan ayaa la sameynayaa, horumaro badan ayaa la sameynayaa. Kuwo badan ayaa lagu guuleystay, kuwo badanna laguma guuleysan. Balse waxaan is dul taagi doonaa laptop-yada iyo horumarada laga sameeyay. Kow, aaladda loo yaqaan Super Hub. Aaladda Super Hub waxay ka mid tahay aaladooyinka soo baxay sanadkan cusub ee 2020. Super Hub shaqadeedu waxay qaybin doontaa dhammaan dabka bixi doona kombiyuutarada. Tusaale, haddii aad leedahay ku dhawaad 3 kombiyuutar ilaa 4 kombiyuutar, ma baahnid jaajaro fara badan, laakiin waxaa u baahan tahay oo kaliya Super Hub. Super Hub waa ku qaybin doona fiilooyinkaaga jaajarada. Waxaa ku dabaysan kartaa kombiyuutaro kala duwan adigoo isticmaalaya fiilooyinka USB-ga. Xitaa waxaad awood u leedahay kaamiradaada iyo moobilkaaga intaba inaad ku dabaysato. Muddo 2 saacadood ah ayuu kuu dabay doonaa sheyga, daqiiqadna wuu buuxsami doonaa. Gurigaaga ayaa dhigi kartaa, magaalkana waa u qaadi kartaa. Super Hub wuxuu kugu buuxinayaa kombiyuutarkaaga muddo 2 daqiiqo ah. waxaana ka heli kartaa suuqyada Amazon iyo suuqyada kale caalamiga ah lagu gado. Number 2, Mufti Z. Mufti Z waa aalad cusub runtii oo sanadka cusub ee 2020-ka ku soo kortay dunida aan ku noolahay. Mufti Z waa boorso yar oo u samaysan qaabka miiska, taas oo loogu talagalay in la saarto kombiyuutarada laptop-yada ah. Waxay ku sahlaysaa in si fudud laptop-kaaga aad u saarato kadibna aad wax rabto ku qabsato. Weliba waxay ka fududahay aaladihii hore oo ah in miis aad soo qaadato kadibna aad saarato. Mufti Z waxaa awood u leedahay inaad meesha rabto aad geedo 20 degree, 60 ilaa inta u baahanta. Waxay ku xiran tahay dhererka kombiyuutarkaaga iyo halka aad fadhiso. Sidoo kale, Mufti Z waxay awood u leedahay inaad ku qaadato boorsadaada adigoo geysanaya goob walba aad doonayso. Xitaa buugaagta iyo waxyaabaha kale ayaa saari kartaa, laakiin sida saxda ah waxaa loo soo saaray oo kaliya laptop-yada. Mufti Z jaamacadda ayaa ku tagi kartaa, sidoo kale waxaad geey kartaa gurigaaga. Meesha rabta ayaa u qaadi kartaa, xilliga aad rabta ayaana isticmaali kartaa. Mufti Z waa boorso loogu talagalay in la saaro kombiyuutarada, taasoo kaa caawinaysa istaaga kombiyuutarkaaga inuu fududaado. Waxaad ka heli kartaa suuqyada Amazon. Mac Reading waxay ka mid tahay boorsooyinka runtii aad iyo aad loola yaabay sanadkan cusub ee 2020-ka. Boorsadani boorsooyinka kale wax badan ayay dheer tahay. Waxay awood u leedahay in lagu qaado alaab tiro badan, iyada oo leh qolal badan oo loogu talagalay in si gooni ah loo geliyo. Khaasatan laptop-yada si aad ay u xafidaa. Qalabka aad wadato meesha aad rabto oo kaliya ayaa gelinaysaa. Sidoo kale waxay leedahay boorsadani inaad ka jaajaraysan karto moobilkaaga. Qayb yar oo waxay leedahay dab leh, qaybtaas awood kuu siinaysa in boorsadaas aad ka jaajaraysato. Xitaa waxay awood u leedahay in mararka qaar bangiyada aad kala baxdo howlaha qaar. Sidoo kale boorsadani wax biyo ah ma karaan, oo biyaha way ka dul daadanayaan sababtoo ah gudaha ma u gali karaan oo waa proof. Boorsadani sidoo kale waxay leedahay dareema ama iftiin kaas oo u sahlaya inuu qofka uusan ku dhiidin. Sidoo kale waa wire oo waxay awood u leedahay inay ku xiranto waxyaabaha qaar. Qoraxdana waxay ka qaadanaysaa oo kaliya energy. Waxaa ka helaysaa suuqyada caalamka sida Amazon. waa ku mahadsantahay daawashada fiidiyowan. Fadlan haddii aad ka heshay fiidiyowan like saar, lana wadaag asxaabtaada qaaliga ah, noona muuji inaad ka heshay barnaamijkan si aan